daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro kambeelka hore oo daa wararka ugu dambeeyay waxaa soo kordhaya faahfaahino kasoo baxaya qaraxii saaka lala eegtay isgoyska x control ee magaalada muqdisho isla markaasina waxaa la sheegayaa injineero turki ah ee dhisaya wadada isku xirta magaalada muqdisho iyo afgooya halkaas ku geeriyoodan ilaa 10 ruux ayaa kasoo baxaysa si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay qaraxii khasaaraha badan dhaliyay injineero turkiya askar dad kale oo ku dhintay qaraxaasi magaalada muqdisho waxa ay soo taraya khasaaraha rasmiga ah ee kasoo baxaya qaraxii ismidaaminta ahaa ee saaka aroortii hore ka dhacay isgoyska x control afgooya ee duleedka magaalada muqdisho isla markaasina khasaare xooggan halkaasi uu ka dhashay qaraxa oo loo adeegsaday gaari nooca raaxada ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10 qof sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo wareedi lagu kalsoon yahay isla markaasina ay ku jireen injineero caalami ah isla markaasina dhisaya wadadaasi oo turki ah dadka dhinta ayaa waxaa ka mid ahaa 2 injineer oo turki ah iyo 3 askari oo ilaalo ahaa kuwaasi oo la socday gaariga nooca aan xabada karin oo marayay halkaasi isla markaasina qaraxa uu haleelay bartilmaameedka ayaa ayaga u ahaa nooca xabada garin ee gaariga ayaa waxaa la leeyahay xabada ma karto laakiinse qaraxyada jugta ah oo gawaarida markii lagu dhufto gaari kale qarax sida waa uu karaya wararka ayaa sheegaya in bartilmaameedka weerarka uu ahaa iyagu waxaana sidoo kale meesha ka dhawaa xarun canshuuraha lagu qaado ee gaadiidka isaga kala goosha wadada xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo afgooya ee gobolka shabeellaha hoose si kastaba ha ahaatee halkaasina khasaare xooggan ay kasoo gaartay sidoo kale waxaa la xaqiijiyay in qaraxaasi ay ku dhinteen 3 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda kuwaas oo goobta ku sugnaa isla markaasina kontaroolka ka dhawaa oo halkaasi taagnaa kuwa ayagana waa ay dhinteen khasaaraha ugu badan ayaa waxa uu soo gaaray dad shacab ah oo isugu jira arday jaamacadeed oo la socda gaari bas ah oo iyo kuwa kale oo qaraxa la kulmay isla markaasina barta kontaroolka ah fayl ugu jiray si kastaba ha ahaatee raggaasi ayaa la xaqiijiyay inta kalena iyo askarta ayaa la xaqiijiyay laakiinse shacabka khasaaraha soo gaaray ayaa iminka si rasmi loo xaqiijin laakiin wararka ayaa sheegaya in saraakiisha amniga ay soo saari doonaan weli saraakiisha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya si rasmi weli maysan ugu hadlin laakiin saacadaha soo socdo ayay ka hadli doonaan qaraxaasi waxaana goobta ku sugan ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan booliiska Soomaaliya kuwaas oo gabi ahaanba isku gadaamay aaga uu qarax ka dhacay isla markaasina baaritaan xooggan ka wada tan iyo markii la bilaabay dhismaha wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye waxa wadadan ka dhacay weeraro kala duwan oo lagu qaaday injineerada dhismaha waxaana sheeganaya kooxda al-shabaab oo marar isku dayday inay ka hor istaagto dhismaha jidkaasi maadaama ay sheegtay ururka al-shabaab jidkaasi inaan la dhisi doonin oo la dhisi karin si kastaba ha ahaatee khasaaraha ayaa intaa kasii badanaya hase yeeshee saraakiisha ciidamada ammaanka ayaa iminka la filayaa inay soo sheegaan inta rasmiga ah ay ku dhimatay halkaasi fadlan calansida la joog oo wararka ugu dambeeya daawo dhinaca kale xog ku aadan 3 mas'uul ee hogaamin doonta galmudug iyo madaxda dawladda oo ka shiraya magacyada ama qofka ay halkaasi soo taagi doonaan waxaa dhawaan la filayaa in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug loogu dhawaaqo xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka labada baarlamaankii labaad ee galmudug kuwa oo iyana dooran doono hogaanka sare ee maamulka isla markaasina madaxweyne dooran doono doorashada hogaanka sare ee galmudug gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa uu sharaxan siyaasiyiin mug leh oo taageero badan haysta isla markaasina qaarna nabad iyo nolol ay taageeraan madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in ay ka shireen cidda ay u arkaan in ay inay hogaamin karto maamulka galmudug si maamulkaasi uu noqdo maamul wada shaqayn dhow la leh dowladda federaalka Soomaaliya waa haddii uu farmaajo uu soo laabtee kadib kulana saacado badan socday ee u dhaxmaray madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayra ayaa waxaa labada mas'uul ugu dambeyn isla meel dhigeen cidda noqonaysa madaxweyne ku-xigeenka galmudug baarlamaanka iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug taas oo intaba ay doonayaan inay nabad iyo nolol halkaasi ay keensadaan inay ayaga taageersan yihiin sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila wareejo lagu kalsoon yahay oo ku dhow filla Soomaaliya kulankaasi ayaa sidoo kale loogu hadlay dardargelinta maamul u sameynta galmudug soo xulista xildhibaanada horay iyo arrimo kale ayaa waxaa lagu go'aamiyay qodobada ay ka mid ahaayeen isla markaasina ragga iminka soo socda magacyadooda aan sheegi doono in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu sabtida berri ah u amba bixi doono magaalada Dhuusamareeb si uu dardar geliyo dhameystirka dhismaha maamulka galmudug cusub isla markaasina dadka heshiis ku yihiin 2
in 69 ka mid ah xildhibaanada lasoo xulayo ay noqdaan xildhibaano aqoon leh isla markaana dooran kara shakhsiyaadka dowladda federaalk Soomaaliya u aragto in ay hogaamin karto galmudug lana shaqayn karo ayaa lagu yiri. 3 in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug lagu garab galo mas'uuliyiinta kala ah Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, lambar 2 cali daahir ciid cali ciid, lambar 3 maxamed nuur gacal, intaasi oo loogu talagalay inay noqdaan madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka. haddii intaas ay usoo baxaan waxaa galmudug lahaanaya nabad iyo nolol. 3dan mas-uul ayaa la sheegay in ay yihiin kuwa aad ugu dhow madaxda qaranka waxayna kasoo kala jeedaan beelaha Habargedir, Saleemaan, Mareexaan, Celi iyo Murusade Sabdi ayaa lagu yiri. maamulka galmudug ee dhismihiisa in muddo ah qaatay isla markaana khilaafka badan ay hareeyeen ayaa waxaa lagu wadaa in lasoo dhammaystiro 9 bisha Janaayo ee sanadkan cusub ee 2020. musharaxiinta ayaa gadaal ka riixaysa dowladda federaalk Soomaaliya. madaxda ugu sarreyso ayaa la filayaa inay loolan adag kala kulmaan musharaxiinta mucaaradka ah, gaar ahaan xilka madaxweynaha galmudug oo ay u taagan yihiin si rasmi ah u taagan yahay xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa iyo xubno kale oo iyagana halkaasi aad u culus. si kastaba ha ahaatee xiisad xoogan iyo kala jiidasho ayaa halkaasi ka jirto. ciddii ku guulaysan doontana allah og, bal wixii soo baxayaan dib ka arki doonaa. daawada nala joog calansida media ayaa weli daawanaysaan. dhinaca kale sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya oo lagu toogtay magaalada Muqdisho iyo faahfaahino halkaas ka soo baxaya. kooxo hubeysan ayaa saacadihii lasoo dhaafay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya lagu dilay qeybo ka mid ah degmada Heliwaa ee gobolka Banaadir. dilka ay fuliyeen rag hubeysan ee bistoolada wata ayaa waxa ay ku dhaceen xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho sida uu inoo xaqiijiyay ilo deegaankaasi degan. al-shabaab ayaa durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda dilka sarkaalkaasi waxayna ay tilmaameen in ay xoogagii fuliyeen ay si ayara uga baxsadeen halkaasi, si nabdoon uga baxsadeen isla markaasina ay ku laabteen meelihii ay kasoo duuleen, kuwaas oo loogu talagalay inay mid u dilaan saraakiisha ciidamada booliiska ayaa lagu yiri. shabaab ayaa durbadiiba sheegatay sidaasi si lamid ahna waxay sheegtay in ay dili doonaan cid kasta oo lug ku leh dowladda federaalk Soomaaliya. sidoo kale wararka ka soo baxaya kooxda al-shabaab lagu sheegay in sarkaalkaasi lagu magacaabi jiray Maxamed Isaaq isla markaana uu ka howlgalayay xerada iskuulka booliiska sida ay hadalka u dhigeen. dhanka kale ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha ciidamada ammaanka, gaar ahaan kuwa booliiska ee ku aadan dilkaasi isla markaasina ah kuwa magaalada Muqdisho si weyn u haystay. ciidamada booliiska ayaa ilaa iminka cadeymo rasmi ah u raadinaya qaabkii loo dilay, weli ma aysan ka hadlin walow ay shabaabka sheegteen. inta badan al-shabaab ayaa weeraro gaadmo ah ku qaada askarta dowladda ee ku sugan magaalada Muqdisho iyagoo u geysta dilal qorshaysan isla markaasina si caadi ah usoo bandhigto. dhowaan ayay ahayd markii 2 askari ay ku dishay xaafadda suuq bacaad oo ka tirsan degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir, taas oo isla markiiba ururka al-shabaab ay sheegteen kuna faaneen dilkii saraakiishaasi. si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa waxa ay magaalada Muqdisho marar inta badan ee kusoo badinayaan dilalka qorshaysan. raggaasi oo afka soo duubtay isla markaasina mootooyin fudud soo qaata ayaa qofkii oo gurigiisa sii galaya ama masaajidka sii galaya amaba keligiis ah halkaasi xarisaas ku fura isla markaasina halkiis kaga baxsada. si kastaba ha ahaatee magaalada Muqdisho ammaankeeda ayaa inta badan waxaa la leeyahay aad ayuu usoo hagaagaya. dadka halka mucaaradka ay qabaan in magaalada Muqdisho ay tahay halkii ugu xumaa amniga tan iyo 2012 ayagoo micnaheedu ay ka wadaan 13 ayaa ka amni badan, 14 ayaa ka amni badan, ilaa xilligii Sheekh Shariif ilaa xilligii Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka amni badan ayay taagan yihiin qolada mucaaradka. si kastaba ha ahaatee qaraxani wararkayna xiga ayaan kusoo qaadan doonaa. daawadayaal nala joog.